Subscribe our channel ka like tan nagu dhiirigeli inta lacag ka magadno Pro Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan xaqiiqo wadamo badan oo caalamka waxaana dadkaas qaarkood ay la yaabeen dhismayaasha Muqdisho iyo in nolol iyo dhismayaal noocan ah ay Soomaaliya ka jiraan qaarkood ayaa waxa ay yiraahdeen sidan haddii dalkooda uu sidan u qurux badan yahay isagoo dagaal ay ka jiraan ka warama marka ay nabad buuxda helaan qof kale ayaa yiri waa markii ugu horeysay ee aan abid wacaal wanaagsan ka maqlo Soomaaliya dagaal iyo burcadbadeed ayaan ka maqli jiray Soomaaliya waan jecelahay inaan maqlo Afrika oo soo kabanaysa waagii hore war murugo leh oo Muqdisho ka yimid ayuun bay ahayd Ilaahay ha barakeeyo Afrika gurigayga qaaradayda warkii ugu horeeyay ee aan ku farxo oo Soomaaliya aan ka maqlo weeye waan ogahay meelo qurxoon inay Soomaaliya leedahay laakiin warbaahinta shisheeye ma muujiso bilicda dalkan waxa ay muujiyaan argagixisanimo dagaalo xagjirnimo iyo abaar kaliya waxa ay la mid tahay dalalka kale ee Afrika horumarinta hantida iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ku soo badanaya Soomaaliya iyo Afrika oo dhan si kasta ha ahaatee qiimaha guryaha waa in wax laga bedelo qof kale ayaa warbixinta Al Jazeera ay ka qortay Soomaaliya aragtidiisa ku cabiray sidan waxaan ahay Ethiopian waan ogahay in Soomaalidu ay tahay dad howl badan waxay Afrika ka noqon karaan awood jirta balse waa in la muujiyaa dhinaca san ee Muqdisho waxaan idin rajaynayaa nabad iyo baraare aragtidan kale ayaa waxa ay leedahay waxa la yaab leh in qayb guri ah oo Muqdisho ku yaala lagu leeyahay $700 halka lacagtaas guri looga ijaaran karo New York waad ogtihiin farqiga u dhaxeeya GDP-ga labada magaalo reer galbeedka waxaa lagu eedeynayaa inay iyagu abuuraan jabhado oo ay hubeeyaan si ay xasilooni darro uga abuuraan dalalka Afrika ugu dambeyntiina ay uga faa'iideystaan inay xadaan qeyraadkooda dabiiciga ah weligay war wanaagsan kama maqlin Soomaaliya dhowr iyo 10 sano marka laga reebo cunto yari iyo weerar argagixiso laakiin waxaan wada ognahay in reer galbeedku ay dhibaatadaasi oo dhan iyagu huriyaan waan ku faraxsanahay inaan arko qaranka Soomaaliya oo soo kabanaya dadka aragtidooda ka dhibta warbixinta sidoo kale waxa kamid ah qofkan oo yiri waxaad arki doontaan howlkarnimada iyo daacadnimada Soomaalida Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa guul Afrika oo dhan baa idinka macaashi doonta marka aad cagihiina isku taagtaan si kastaba warbixinta Al Jazeera English ayaa muujinaysa isbeddelka horumarineed ee caasimadda ka jira iyo caqabadaha barbar socda Hapa Tanzania mambo mingi ajabu mabombe ya kila aina halali masigara makila kitu lakini kitu ajabu sana miraa anashikilia anafuata namna hii madawa ya kulevya mwenyewe anachacha kuwa ni haramu kiserikali lakini watu wanaonekana dhaifu fichana anatoa mate anasuba barabarani anaitaga matecha lakini huwezi kusikia anakamata yale mkubwa anayeleta haya madawa bana lakini askari yote kazi yao miraa sasa sisi anatunga wimbo kidogo kuonyesha hii mambo ya miraa bwana mbona bandi moja sana Mairungi Kenya halali Uganda halali London kula Malkia Meyewe aba haramu konyage halali haqi gani hii shar'i gani hii mambo gani hii askari polisi hapa Tanzania nakosa gazi yao miraa shamba gani natoka gari gani nabeba boda gani nafuka mama gani nausa kadi marehan acha kutacha machina ya watu sokota maneno mingi haqi gani hii shar'i gani hii mambo gani hii askari polisi hapa Tanzania mambo yao ajabu kabisa kiona wewe miskini ya Mungu barabarani mdomo yako unacheza kumbe dakula bigichi nasema stop binua madomo yangu stop magendo gani naka haqi gani shar'i gani mambo gani
Hapa Tanzania iko bombe imbi kabisa na ita magunda matata. Hakuna matata kweli? Rongo. Matata kibao. Watu nakosa akli, maneno mingi, matusi mingi. Nalala hovyo kwenye fereji. Nyeti yao nabaki inchi. Watoto nabata inda wawa. Haki gani hii? Shar'i gani hii? Mambo gani hii? Hata mtoto ya Kitanzania, mimi mwanamke ya Tanzania naongeza na ya wao maneno, nasema fagilia 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 gomba wa mirungi gi giza